mid ka saddexaad oo laga yaabo inaad aragtaan maxaan ku dhahaa in lugaha la isjijidayo mararka qaarkood maryaha la iska jeexjeexo laakiin u baahan geesinimada waa inaan dastuurka dhamaystirnaa dalkan haddii aan dastuurkiisa la dhamaystirin dawladda Soomaaliyeed say ku shaqaysaa waa adag tahay tusaale yar haddaan rabo inaan iskuul ka dhiso beledweyne iskuulkaas cidda dhisaysa nooma cad waa la isku qabsanayaa state-ku wuxuu leeyahay anaa dhisanaya adu shaqo kuma lihid lacagta iyo haddaad soo dhamaysay iska soo wareeji anna waxaan rabaa inaan dhiso waxaa jira system kale oo dawladda hoose la yidhaahdo oo asagana oranaya adeer anaa iskale baashi baarlamaankii sagaalaad iyo kii tobnaad ayaa dhamaystiray dastuurkan dhinac kasta laga istaagay anu mar waxaan ku jiray dadka ka shaqeeya dastuurka 3 options wax kasta ka yaala 3 option ama kan qaado ama kan qaado ama kan qaado lacagihii adduunka oo dhan baa ku dhamaaday khabiir adduunka joogo la keenin waxaan u maleynaa waa yar yahay oo dastuurkaas dib u soo eegay oo dhinac ka fiirin daldaleelku raba ha lahaado laakiin caqli iyo cilmi toona kama dhinno hal wax buu u baahan yahay waxaa jira 9 qodob oo u baahan 9kaasiba in tiimkan hadda sheegaya ay go'aan ka gaaraan waa loo soo bandhigayaa sidan miyaa jirta sidanna waa jirtaa sidanna waa jirtaa ee mid doorta waa inay mid doortaan oo dadka u dooraan mid kadibna kaas la dastuureeyo oo dastuurkiisaas ku dhamaado options ko dhan waa diyaar muqdisho say noqon doonta 3 option ka yaal fiscal federalism kisaab noqonaya 3 option annaga shalay maxaa noo soo bandhigay 3 options mid kasta 3 options marka in mid la doorto un baa dhiman wax kale oo dhiman ma leh haddii marka laga cabsado la yiraahdo lama taabanayo waxyaan la isku taabanin goormu dhamaanaya haddii la daayo dastuurka la dhameyn waayo goormu murankeenu dhamaanaya goormay dawladdu shaqeynaysaa ma shaqeynayso annagu waxaan rabnaa marka ama lug ha la isku dhago ama qadaad ha la isku dhago sanadkan inuu dhamaado way baashay